in ay maanta guddidaasi ay kow ka yihiin kuwa ugu horeeyay Somaliland u tudhay jeegaasay ku caddahay mar walbana inaynu dalka iyo dadkeennaba aynu u tudhanno marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay halkaa dhammaanteen nagoo caafimaad qaba iskugu wada keenay salaadiin cuqaal iyo labada guddi ee labada dhinac kala ah ee maanta halkaa magtii oo wax amaaha aanay ku jirin lagu kala gudoomay aad baan idinku ducaynayaa inuu ilaahay mar walba idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca ayaan marka hore ilaahay idinka baryayaa intaa kadib maanta dee amarkii ugu weynaa ee guddidii habar jeclo ay iyo salaadiintoodii iyo goosdambeedkoodii dee waxaana weeye in ay maanta guddidaasi ay kow ka yihiin kuwa ugu horeeyay Somaliland u tudhay ee dhidibada u taagay guddida garxajisna iyaguna go'aankii iyo xukunkiiba way aqbaleen iyagana inta ganacsato iyo tijaar ah ee maanta lacagta xadigeedu yahay 500,000 oo dollar iyo kontonkii dhaawac ahaaba in ay soo raaciyeen kuwaana ilaahay waxaan uga baryaa caafimaad iyo cimri dherer jeegaasay ku caddahay mar walbana inaynu dalka iyo dadkeennaba aynu u tudhanno aynu ugu ducaynayaa madaxaanad noo saarantiin beelweynta habar jeclo mar walbana waan idin garab taagan anagu abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada